waxaa rubowday maanta riyo muddo soo socotay sanooyin wixii aan laga harin rabbina loo wakiisho waa dhaboobaan meel bay ku dhamaadaan in baana ka qayb qaadato oo waqtigu gaarsiiya waxaa maanta aniga sharaf weyn ii ah inaan goobjoog ka ahaado furitaanka xabsigan oo intii aan xilka hayay aan u istaagay inuu meel maro taliyamaad waxaan rabaa inaan kuu sheego kormeerkii ugu horreeyay oon ku imid magaalada Kaalkacyo ee safarkaygii shaqo markii aan kormeeray wasaaradda amniga iyo xubnaha dawladda wixii igu xanuunka badnaayo la kulmay waxay ahayd xabsi seeshika booliiska ee Kaalkacyo waana imid markaan arkay facility-ga halkan ku diyaarka oo wax yar oo taabashaa u dhiman tahay ayaan waxaan go'aansaday in meeshaan laga miro dhaliyo ilaahay subxaanahu qaadirka ayaa mahaddeeda awadan iska leh waxa mahaddeeda iska leh ganacsatada reer Kaalkacyood oo shirkado iyo bakhaaro iyo hoteelo iyo dukaamo kulligood casuumadan hameen u sameeyay ku ballan qaaday inay xabsiga dhameystiri doonaan waxa ka dhiman waxaan leeyahay ganacsatada reer Kaalkacyood gudoomiyahooda ganacsaduhu hogaaminayo Cabdiraxmaan Dheere iyo raggii guddiga ay la socday talaabadii aad qaadeen waa dhawowday dhameystirkeedana waa la kugu fadhiyaa ilaahayna ajar hayn ka siiyo wasaaradda amnigu waa wasaarad ballaaran lana shaqayso wasaarado badan oo kamid ah wasaaradaha kale ee dawlad goboleedka Galmudug leedahay waxaana ugu dhow oo isla shaqeeyaan waa wasaaradda cadaaladda oo ciidanka asluubta hor yimaadaan wada shaqayn buuxda ayaa naga dhaxaysa Cornel Ali maanta waad maqlaysaan xabiistu halkan ka xaadiriyay cadadkoodii intay yihiin waxaan rajaynaynaa maalinta ama berritaba inay xabiistaas la soo wareejiyo ma rabno wareejin kaliya inaan kaga harno waxaan diyaar u nahay dhamaystirka inta ay xoogaysanayso xuduudda ama ciidanka asluubta ee Galmudug ay lugahooda ku istaagayaan inay wasaaraddu kala sii shaqayso waxna la qabato ee dhiirigelintii ganacsiga iyo cid walbana ay samayso wixii waajibaadana aan gudano waxaan rabaa ammaantaas aan u jeediyay ganacsatada reer Galmudug iyo dhammaan reer Galmudug oo dhan gaar ahaan ganacsatada Kaalkacyo xabsiga meeshaan laga dhisay waa xabsiga dhexe ee Galmudug laakiin wuxuu marti u yahay reer Kaalkacyo oo lala jooga waxaa la ka rabaa intaas aad qabateen iyo in ka badan ba inaad sii qabataan loo istaago talaabooyinka kale oo ku xiga oo taliyuhu asagoo halkan ka sheegi doono anuu ma rabo inaan ka hor dhacee waxaan rabaa in ayadana laga dhabeeyo oo la dhameystiro wixii loo istaagaa waxba laga qaban karaa ummadda Soomaaliyeed wax badan ayaa waxa laga sugay cid shisheeya inay wax inta keento ay qabato reer Kaalkacyo waxaan rabaa inaan idin sheego shisheeye wax laga sugaa waa soo dhamaado Soomaaliya waa lagu daalay 30 sano 40 sano ayaa la wadaa adiguba cunuga aad dhashay markuu 10 gaaro ama 15 gaaro inuu ka dhaqaaqo shaqo tagaa la rabaa anagu qaangaari weynay marka haddaan qaangaari weynay go'aan waxa la qaatay in anaga la isku kaayadaayo waxna aan qabsano magaalo walba iyo dadka degan waxa laga rabaa inay qabsadaan waxooda iyo noloshooda xabsigan kaliya maaha waxa laali waxaad qabsan kartaan inaad u istaagtaan oo aad qabataan oo aad adigu isku tashataan wixii ka dhiman baa marka la inay dhameystiri doonaa waxaan rabaa hadalkayga inaan ku soo koobo taliyamaad iyo ciidanka asluubta dhammaad wixii la oran lahaa waa la yidhi in badanna waa dambaysaa ilaa uu diyaaradda ka raacayo geesahan kaga jiri doonaa haddaan nahay reer Galmudug gaar ahaan reer Kaalkacyo ma hadda loo jeediyey midna waa mid iska meediyaha iyo hadal iska ah inta Soomaalidu u badan tahay midna waa mid dhaba taliya mahad midda reer Galmudug iyo Kaalkacyo ay ku jeediyaan ogow waa mid qalbiga ka soo go'day waxaana keenay
walaaltinimada iyo mas'uuliyadda iyo kalgacalka aad ugu shaqaysay adiga iyo bahdaada ciidanka asluubta ee taliyaashu ay ku jiraan waxaan leenahay taliye mahad intaan iyo in ka badanna waa kugu fadhinaa intii horena taariikhduna waa qoraysaa ilaahay subxaana qaadirkaana waa kaa ajarsiin doonaa insha allahu awal waxaan rabay inaan taliyaha anugu soo dhaweeyo laakiin waxaa la yidhi gabdhaha iyo wiilasha quruxda badan ee gadaalkayga fadhiya xigmad badan baa ku duudan xalay waan ogeyn heesii ay qaadeen 30 sano ugu dambeeyay anoon hees u kicin baan u istaagay waxayna ahayd wax dhuuxayga qaatay in askarigu uu qiimo leeyahay haddaan noqday ciidankii booliiska ama amniga galmudug laftigeedu markaan askari baan ahay darajadeedu ma aqaan taliyuhu u xiri doono laakiin de askari baan marka waxay sameeyeen waxay soo jiitay bay ahaayeen xigmadda ku duuganna waxaan rabaa inay haddana noo soo daayaan codsina taliyaan ka codsadana waxaan rabaa caawa midii ugu dambeysay oo luqyada ku jirta inay naloo soo furfuro oo naloo keeno caawana insha allahu aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin reer Kaalkacyo waa mahadsantihiin wasaaradda cadaaladdu waa mahadsan tahay kaalinta ay ka qaadanayso asluubta cid walba oo gacanta geysatay waxaan leeyahay jazaakumullahu khayr waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu